ololadan talaalka udurka dabeelo oo ay ololagii afaraad ee sanadkan gudaashay la qobaday waliba daafurshii ku qayb galay mas'uuliyiinku dareeriya hay'ado UNICEF WHO howlwadeenada wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed ana hukuumadda agaasimaha wasaaradda howlwadeenada biyaaye talaalka muddada 4 bere u soo dareeradoon iyo marti sharaf oo la ka azumay munaasabada hana hukuumadda mas'uuliyiinta ku qayb galay xafladda iyo waliba ka booriyana bulshada iniyo siiyanga awlaadiyo talaalka oo biyayaan bahda caafimaadka tiimka hawsha qabanaya aan kula dardaarmaya in fursad looga faa'iideeyo caruurta iyo dhamaan inta ku dhaqan degmadan Baydhabo fursadaas oo ah in la gaaro ilmaha 5 sano ka yar adinka idin wakiilanay ina ilmihii guriyihii loogu tago fursadan hadda jirtay ee talaalka campaign-ka iyo vitamin A-ga oo ka hortaga ah in ilmihii looga faa'iideeyo kantii nadaafadda in run lang araga walaangna noolna run didila cudurkana una ninka damboyna sanadagna ningarna Soomaaliyanka damboyti hatana booli wala eritray Soomaaliyanka damboyti hadii nagana waliba Soomaali naftiya geesad badan lata unadana kan aan horay oo ninka jarana Abdulqaadir Ali Ahmed oo madaxa wacyigelinta caafimaadka gobolka Bay waliba dhinay ka shaqeeyo kala taliya bulshada iyo qaadadan talaalka iyo talooyinka iyo biyayaan dhaqaatiirta caafimaadka sanadkan 2028 inta la guda jaray ka wacyigelin ahaan bulsho ahaan wacyigeliyasha bulshada ku qooyan tumanka xaafadda ku qooyan hadana meelan daray shaqadii inta tumankaas xaafadda wacyigeliyaan meel mas'uulku ahaa DSMC-yada oo horti hal qof ajari oo leero Maxamed Qaadir hada Zuhur Jamaal Korti oo hayti qof intu ka hadal haday marka insha Allah ma rajaan dhamaan iniyo markii seedan xaafad ama guriga seedan inuu ku hadalaan eraan ana wacyi aha iyo aan qarina hadhowdii kormeeryaal jaradoona markii talaalka bareenin bilaawada xukuumadda dhaqaatiirta ku qayb galay furitaanka talaalka dabeelle iyo waliba uu sheegay in ay muhiim tahay in awlaad la siiyo talaalka ee korsada ku udurka dabeelle kantii nadaafadda in run lang araga walaangna noolna run didila cudurkana una ninka damboyna sanadagna ningarna Soomaaliyanka damboyti hatana booli wala eritray Soomaaliyanka damboyti hadii nagana waliba Soomaali naftiya geesad badan lata unadana kan aan horay oo ninka jarana Haji Sheikh Shuaib oo madaxa horumarinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waliba sidaas hata uu ka booriyay bulshada ku qayb galay munaasabada inay ku digtoonaadaan ee udurrada ee faafo dabeelle waana iyal kiisho oo 5 sano ku yar iyo siyanga dad oo ba jira isku jira yani oo aan ogayna oo meeray muhiimad u leeyahay talaalka muhiimad u leeyahay walaal saana naqdahay dad qaar way beerayna talaalka ma hana naqday umrul may booli leelin qaada dhibaato talaw ee boolidan hadii yani oo intii kiis la argaw kiis oo yani booli la argaw boolin dareeras leey intaas dhan weysana hadii la waay kiiskaas la waay markaas ciribtirmi yani boolidan hiraasa dhibaato talaw ee mar walba naqdaayta mar walba yani way ciribtirlis hadii san bal qaada way ba yani la argahaye boolidi intii surunta leey khayraad Cabdulle Cabdiraxmaan oo madaxa talaalka guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed oo xiri munaasabada waliba waalidiinta u ka booriyay in iyo talaalka awlaadiyo siyaan si difaaca nagada wacyigeliyashiyo kooku faraaqyo meelay talaalaha iyo wacyigeliyalka tan badoorka walay kowala talaale wanaga afjay wala ka tafiya koona wacyigeliya meel ku faday idan magal rooway balan roogto waayel roogay na alna giro in la kulmo ani qof ku aragan idaasay oo sheegan dadkana booli leeyahay arna talaal dabeelo ro afki kan leeyahay sheega idiyadan hal oo Baydhabo ka taal oo leen aragan marfadaw ololadan talaalka udurka dabeelle waliba soo kaaladaya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda koonfur galbeed hay'adaha WHO UNICEF iyo waliba markii afraad u sanagday sanadkan gudaashay oo la qobado kaas oo dhan korseeda si hortaanka nagada awlaad 5 sano ku yara udurka dabeelle Ibrahim Xasan Ali warbaahinta koonfur galbeed Baydhabo